بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب شرفت المال كستجوتي وعني وسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب شرفت الله بسكسو الله وشوعا مشغول أنا كلا قلي لكن هذا بحي كدن بي وتاجنا هاي الوصايع ولا ليال maalmaha wadanka Kenya waxa ka socda waxyaalaha loo dulqaadi karin dadka Soomaaliyeed ganacsatada dhalinyarada dumarka wax la cafinayay Ilaahay abuurtay male dhacdooyinka ugu dambeeyay walaalayaal waa aragteen gabadhan Soomaaliyeed dhibaatada ku dhacday wixii ka horeeyay waa aragteen horta gabadhan aan ka hadlaynaa gabadhan Soomaaliyeed maalmahan waa la la'ay gabadhii waxa la soo duubay familkeeda loo soo diray gabadhii oo la dilay farax laga jaray wajigeeda ilkii la daadiyay gabadhii hadaa arag sabarkeeda caadiga ah si gabar qurxan oo yar ee tahay iyo hadda seetay hadaa wajiga dhan waa baray waxa u malaysaa maama weyn ilaah baa ilo oge wax loo dul qaadan karamiya dad Soomaaliyeed war waxa ka dilaacay meesha magafa ka dilaacay oo Liibiya magafi Liibiya aan qabateen qabtiya soo wareegtay si ila tahay dad Soomaaliyeed aan ka dambeeyay waana loo ogaa doonaa waayo dadka Kenya hadee dhibaatadan ee ku kacayna Soomaaliya soo farmo maxay ku ogaa karaan ninka inuu lacag leh in kale dadka Kenya ani difaac miga ah Kenya waa cadow Soomaaliya wax dadka dhibaatayaan waa dad ganacsatada birito maanta hada aamusid waxa ka aamusan wiilkii Soomaaliyeed oo hantida lahaay oo ilaakum sabdiida injineerka ahay oo ilaah baa ilo og hantidiisa kala bar Nairobi leh waxa ku dambeeyay waa aragteen inuu hilibkiisa la jarjaro gaarigiisa la gubo indhaha laga bixiyo ilaah baa ilo soo noola gacmihii laga jaray logihii laga jaray ilaakum soo korkiisa hataa waxa loo roogay laami si saxariira loo diiday ilaahani uu dhaari waa ka aamusan wax ka hadlay maanta u kacay dad Soomaaliyeed oo Nairobi ku sugan nin kasta wuxuu dhahay u soo ku dhaca maanta waa tii labaad waa dumar waa gabar yar oo dhalinyaro shaqaysanayso oo maanta haddana saas loo yeelay laga baahan yahay 50,000 lacagta Kenya u qalanta waa 7 milyan maal dhaha oo lacag Kenya Yemen oo u qalanta 50,000 إلهي أو قبلنا عافمات قبل أو فريق اللي جري أو وجهي درد اللي جيستي مستقبل كذا حتى الله وعلا وحلو عفي إلهي أورت مالي إلهي سبحانه وتعالى عدوات أكسوب البادية دتك الصوماليات وحلو باين إنه قاع ما يسخب صدا كديبيان بنام بحوين سميان إسكو دوبنادان إسكو ورهايان ميلي آذين ميل كلانتي مركز بحاين دت إنه وطان oo kaliyood wadan gaariyaasha haday ku socdaan haday taatu raacay iyo haday lugeeyay waa inuu dal la socdo si la iskaga warhaayo GPS inuu la isku xiro saacada telefoonka la qaato oo telefoonka ama qofka markuu xaas qabo xaaskiisa ku xiro markuu dhib yar gaarba taabto soo u dhaco wax kasta information oo gudbina waxa loo baahan yahay inuu la iska taxadiro maxaa yeelay naftadaada ku jirto waayo wadan cadow waa joogtaa wadan shisheeyaa joogtaa wadanka shisheeye waxa loo baahan yahay markay dhibaatadan imaato waa lagu soo socda ayar adiga dulqaadkaada la baroobeena Soomaaliya hada wiilkii ka aamusteen waxa isweydii ma aragteen loo yaraa la qabtay waxa la isweydii dawladda Kenya maxay ka qaban tan waxay ka qabanaysaa lacagtan hada la si birito mid kale la xareysan waa la dilaa wali kan kale la qabsadan waa la dilaa kan kale inta waa la qabanaa hadan lacag lagu rabaa lagu leeyahay wiilka Soomaaliyeed oo si xun loo dilay gaarigiisa $50,000 iyo $100,000 joogo gaari inuu la gubay oo san la dilay maanta haday dhilaan lacag waa la siin naftidiisa dhaafiyay gabadhan ma dhihin lacag arabnaa waa haysanay dil gacantii farihii wax dhan ay ka jaray yaani ugu dhaari wax loo dul qaadan karo dawladeena Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay safaaradda Kenya noo fadhiso ada ilaaqaad kala soo celi ma ahayn inuu ilaaqaad kala soo celi waaba la soo celi dirisanahay ilaakum sabdida wiligeena dad naga go'ay kala guureena mani ilaahay dirisana iskaandhay laakiin waxa loo baahan yahay inuu la xisaabtanto dadka Soomaaliyeed safaaradooda ku xirnaadaan safaaradda Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay inuu ka dhibiyso oo tilaabo laga qaado oo wadankaas runta loo sheego dad Kenyan Soomaali way buuxaan sirma laga yeelan karo laakiin anaga manihi dad aargoosto ama dad ficilkaas ama dad waxba galabsan inuu ku sameeyaan qaladan laakiin waxa loo baahan yahay dawladda Kenya inuu dhankeeda ka dadaasho dadkaas gacan bir ku soo qabto waa qooleysato maxaa loo baahan yahay marka
cadowtinimo inuu la isku abuuro labada shacab looma baahan labada shacab waxaa loo baahan inuu gacmaha isqabsadaan dirisaa la yahay la iskuma haasta ma fahmano dirisnimada cidiida mal laakiin inuu dadkeen lagu dhibaateeyo oo maalin kasta indhaha ka fiirsano wax loo dulqaadan kara ma aha ilaahay subxaana watacaala gabadhaas soo badbaadiyo aloo kaco walaalayaal aloo kaco nin kastoo kaalintoo ka qaadan kara aga qaato dadka soomaaliyeed aka dhidhiyaan banaan bax weyn a sameeyaan dadka Soomaaliyeed oo dawladda Kenya oo degan dadka Kenyaatiga Soomaali Kenyaati waxa loo baahan yahay ika wadanka u dhashtay inuu ka dhidhiya xilwaan ay ku leeyihiin senator ay ku leeyihiin inuu u hadlaan walaalahooda Soomaaliyeed si uu soo samata baxaan dad u soo qacaan ay loo baahan yahay marka walaalayaal soo dhawaada iskaraab noo saara gobol walaashan Ilaahay soo badbaadiyo anaga dhan waa u duceeyna nin kasto Soomaaliyeed waa ka damqaday nin kasto Soomaaliyeed wuu ka naxay ninka Soomaaliyeed dhiiga kacay wax loo dul qaadan kara ma aha laakiin wax kasta dan iyo daruuf ah keentay insha Allah faataxada iyo nin kasto wuxuu ka qaadan kara kaalinta gabadhaas ala soo daayo iyadoo caafimaad qabto muhiimadda intaas noo ah إن شاء الله هذا عليه سكراب لاك شير أصحابك الألوسي قدبيو ولا عليه أنا وحي عثماني سو قد اتصل التفسير وأنا ما هو حيالا لا لا بجرو ولا على سود هذا سكراب نص